degdegin. Waxaad tahay saxaabiyad. Waxaad doonaysaa inaad wax badan ka ogaato diintaada, waayo waxaa og tahay Allah subxaanahu wa tacaala inaan lagu caabudin jahli. Sidoo kale waxaa og tahay mar walba uu ku toosnaado qofka dariiqa xaqa ah inuu helayo xikmad iyo aqoon. Maantana waxaa garab socotaa nabigaaga Muxammad sallallahu alayhi wasallam, adiga oo si aad ah u dhageysanayo waxa uu leeyahay. Nabigaaga wuxuu ku yiri mid walba idinka mid ah ducadiisa waa la aqbalayaa haddii uusan degdegin oo uusan dhihin waan ducaystay balse la ima aqbalin. Saxaabiyada, Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay adoonka sida aadka ah u barya ee ku celceliya baryada. Hooyada Caaisha waxay tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin ducaystay oo ducaystay. Maalintii Badar, nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu arkay gaaladii Quraysh oo is aruursaday ayuu u jeestay qiblada, gacmihiisa ayuu kor u taagay. Wuxuu yiri, Ilaahow ii rumey waxa iga ballan qaaday. Ilaahayow, haddii aad halaagto kooxdan yar ee muslimiinta ah ma jirayso cid dambe oo kugu caabudayso dhulkan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku celcelinayay ducadaas ilaa markii dambe uu ka dhacay go'i saarna garabkiisa. Waxa uu yimid markaas Abubakar oo go'i ka soo qaaday dhulka, garabkana u saaray. Waxa uuna ku yiri, intaas ayaa kaaga filan Rabbiga, wixii uu ku ballan qaadayna waa uu ku oofin doonaa. Saxaabiyada, haddii aad Rabbiga wax uga baahato ha ka daalin ducada oo Rabbiga isku dulley, hana dahsanin ducadaada xilliga lagu aqbalayo. Keliya ku dadaal ducada. Waxaa laga yaabaa Rabbiga inuu jecel yahay inuu maqlo mar walba codkaaga. Ducada ha ka daalin ee ku celceli. Marka uu mu'adinka dhammeeyo adinka, gacmahaaga kor u qaad adiga oo Rabbiga u sheeganayo culeysyadaada. Markaad sujuudsan tahay ha degdegin oo madaxaaga kor ha u soo qaadin. Danahaaga u sheego Rabbiga adiga oo sujuudsan, waayo waa marka keliya ee sida aadka ah ugu dhowdahay Rabbiga. Qof miskiin ah booqo oo gacanta wax u geli. Qof xanuunsan oo aan haysan waxba u iibi daawada. Marwada laga dhintay ama la furay ee aan haysan waxba, garabkeeda noqo oo u iibi raashinka iyo dharka. Markaasna gacmahaaga u taago Rabbiga adiga oo baryayo. Saxaabiyada, xilliyada qaar in ducada la aqbalo way soo daahi kartaa. Taasna waxaa u sabab ah inuu Rabbiga jecel yahay inuu maqlo mar walba codkaaga, ama inuu badan yahay dembigaaga, Rabbigaana uu sugayo inaad u laabato asaga. Nabi Muuse calayhi salaam reer bani Israa'iil ayuu u waday roobdoon xilli ay jirtay abaar daran, dhulkana uu qalalay, dadkana ay ku dhowaadeen inay dhammaadaan. Inkastoo ay tukadeen balse roobkii ma imaanin. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa waxaa loo waxyooday dadka inuu ku jiro addoon caasi ah. Dadweynihii ayuu u sheegay arrinka, wuxuuna ka dalbaday markaas inuu soo baxo qofkaas. Waqti yar kadib, iyadoo uusan soo bixin qofkii, waxaa yimid roob xooggan. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa Rabbigii weydiiyey markaas roobka wuxuu yahay, iyadoo uusan soo bixin addoonkii caasiga ahaa. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa u sheegay markaas inuu toobad keenay addoonkaas. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa Rabbigii wuxuu weydiiyey addoonkaas cidda uu yahay. Rabbiga naxariista badan ayaa wuxuu yiri markaas, Muusow, asagoo i caasinayo ayaan qariyay oo asturay, sidaan u fadeexaynayaa asagoo ii toobad keenay aniga. Ummad dhan ayaa roobka waxaa lagu diiday hal addoon oo caasi ah awgiis. Taasna waxay ku tusaysaa qofka ducadiisa inaan la aqbalaynin haddii uu bato dembigiisa. Haddii ay jirto duco kaaga maqan xagga Alle oo aan lagu aqbalin weli, ku laabo naftaada oo fiiri. Haddii uu jiro dembi kaaga baahan inaad ka baxdo ama aad ka toobad keento, waayo Rabbiga naxariista badan bilaash uma dhihin ibarya ee wuxuu rabaa inuu waxna siiyo. Balse xilliyada qaar inaan la aqbalin ducada waxaa u sabab ah nafteenna. Nabi Ciise calayhi salaam ayaa nin wuxuu ku yiri ii dardaaran. Wuxuu yiri Nabi Ciise, raadi xalaasha. Hantida xaaraanta ah waxay kaa hor istaagaysaa in lagu aqbalo ducada. Waxaa jiray nin safar ah oo uu ka muuqday rafaadka safarka. Gacmihiisa ayuu kor u taagay isaga oo leh, Rabbiyow, Rabbiyow. Ninkaas waxa uu cunay waxay ahaayeen xaaraan, waxa uu cabayna waxay ahaayeen xaaraan, dharka uu watayna waxay ahaayeen xaaraan.
sidee loo aqbalayaa ninkaas ducadiisa? Haddii rabbiga uu ka aqbali waayo ducada, naftaada ku laabo. Waxaa laga yaabaa inay ku jirto ganacsi xaaraan ah. Marka hore wanaaji naftaada, marka xigtana ku bishaarayso in lagu aqbalayo ducadaada. Saxaabiyada, nin ka mid ah taabiciyiintii ayaa Allah subxaanahu wa tacaala weydiisan jiray in loo fududeeyo jihaadka, balse Allah subxaanahu wa tacaala uma qadarin. Wuxuu la yaabay ducadiisa inaan loo aqbalaynin. Riyo ayaa wuxuu ku arkay markaas qof leh, haddii aad jihaadka aado, gaalada ayaa gacanta u galaysaa. Haddii gacantooda aad ku dhacdana, diintooda ayay qaadanaysaa oo waxaa noqonaysaa Kirishtan. Allah subxaanahu wa tacaala xilliyada qaar waxyaabaha aan weydiisanno ayuu inoo diidaa. Taasna waxaa u sabab ah jacaylka uu inoo qabo. Waxyaabaha aan ka dalbanno ayuu inoo diidaa, waayo waxay dhibayaan nafteenna. Dadkii hore, ducada marka loo aqbalo hal mar ayay farxi jireen, marka aan loo aqbalinna waxay farxi jireen 2 mar, waayo ducada aqbalideedu waa waxay dalbadeen iyaga, laakiinse diidmadu Alle ayaa u dooray. Doorista Alle ayaana ka wanaagsan waxa aan dooranno anaga. Saxaabiyada, xilliyada qaar ducada aqbalkeeda inay soo daahdo waxaa u sabab ah inaan la gaarin waqtigeeda. Waxyaabaha qaar haddii aan ku qaadano degdeg, waxaan ku waayaynaa degdeg. Saxaabiyada, ku kalsoonow Rabbiga oo ha ka daalin ducada. Ku kalsoonow Rabbiga oo ha ka daalin ducada.